waad mahadsantahay cali ibraahim cali saxeefa saaka salaada subax marka laga soo baxay deegaanka ceeryaan ee ka tirsan magaalada ceerigaaba duleedkeeda ah kana tirsan gobolka Sanaag waxaa ka dhacay dagaal beeleedkaas oo u dhexeeya laba beelood oo hore ugu dagaalamay deegaanada Ceelaf Weyn. dagaalkaasi khasaaraha ilaa iyo imika calaw uu soo gaarsiiyay waxaa la sheegay in 3 qof ay ku dhinteen dad 7 gaari ay ku dhaawacmeen sida ay sheegayaan dadka deegaanka iyo sidoo kale wariyaasha ka howlgala gobolka Sanaag. dhaawacyada dadkaasi waxaa la keenay isbitaalka magaalada Ceerigaaba oo ilaa 45 kiiloomitir u jira deegaanka oo dagaalku ka dhacay. marka waxaa la sheegay in imika xiisada halkaas ka jirta ay sidii hore ka qabowdahay balse khasaaraha imika ilaa iyo hadda soo gaaraya intaas yahay cali ilaa iyo warkaan hadda oo ognahay. ciidamada militariga Soomaaliland ayaa la sheegay inay ku baxeen halkaas oo hadda dib uga soo cusboonaatay iyadoo maalmihii u dambeeyay ciidamada Soomaaliland ay gobolka Sanaag ku sugnaayeen shaqaaqo ka jirta deegaanka Ceelaf Weyn oo hore halkaasi laba beelood halkaas ku dagaalamay ka wada tirsanaayeen. marka ciidamada la sheegay in dadkaasi imika kala dhex galeen. Ilyaaso ilaa hadda madaxda Soomaaliland ma ka hadleen arrintan? ilaa iyo hadda calaw imika cid mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ama hay'adda amniga ama hay'adaha gaashaandhigga iyo sidoo kale ciidamada militariga ciidamada militariga booliiska cid ka hadashay maamulka gobolkaasi ma jirto. dagaaladaas saaka ka soo cusboonaaday deegaankaasi waxaase wasiirka arrimaha gudaha iyo ay ku sugayeen taliyaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland xalinta colaadda ka jirtay deegaanka Ceelaf Weyn oo sanadkii hore dagaal ku dhexmareen iyo sanadkan horaantiisii labada beelood ku dagaalamay isla deegaankaasi kale ee ka tirsan koonfur ka xiga magaalada Ceerigaaba.